إنا لله وإنا إليه راجعون. مدحوينها جمهورية الصوماليلاند مدن موسى بيح عبدي isagoo ku hadlaya magaciisa ka dawladda iyo ka shacabka Soomaaliland waxa uu tacsi u diraya waxgaradka waayeelka aqoon-yahanka dalka qoysaska ehelada qaraabada asxaabta iyo shacbiga Soomaaliland oo ka baxay Allah u naxariis marxuun Cawl Cilmi Cabdalle oo ku geeriyooday maanta ay taariikhdu tahay 28 bisha Diseembar 2019 caasimadda Soomaaliland Hargeysa. madaxweynuhu waxa uu marxuunka ku sifeeyay siyaasi rugcadaayo halgamadii kala dambeeyay dalka loo soo maray door muhiim ah ku lahaa qayb weyn ka qaatay dib u dhiskii iyo nabadeyntii shacbiga Soomaaliland markii dambana noqday maayirkii caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa oo uu kaga tagay taariikh iyo astaamo maguuraan muddadii uu xilka hayay. madaxweynuhu waxa uu marxuumka looga baryayaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo waxgaradka waayeelka iyo aqoon-yahanka qoysaska ehelada qaraabada iyo shacbiga Soomaaliland oo ka siiya samir iyo iimaan saadiqa. وعاول عبد الرحيم كيسا عاول برعاوي في أوسنا يوس قصرية مدحتوية جمهورية الصوماليلاند مقالة هرقيسا.